Assalaamu calaykum akhaarta sharafta leh, galab wanaagsan, maalin wanaagsan, door wanaagsan, meel walba adduunyada ka joogtaanba. Waxaan ku eegi doonaa videogan xaaladda Bitcoin iyo halka ay ku dambeyn karto. Xaaladiisa ma wanaagsano, xaaladiisa ma wanaagsano. Een, waxa aniga ila tahay fikirkeyga ayaan ka hadlayaa. Waxaan u arkaa Bitcoin inuu aad iyo aad hoos ugu dhici doono, uu tegi doono ilaa iyo 12,000 12,000 ilaa 15,000 inta u dhexeysa. Aniga fikir ahaan waaye. Markaan eegno wuxuu tegey 69,000 mar walba wuxuu lumiyaa 85 ilaa 75 ilaa 80 inta u dhexeyso. Mar walba oo qiimaha ugu sarreeya gaaro. Marka haddii aan 80 niraahno 13,600 ayaad arkaysaan. 13,600 buluug waa arkaysaan. Hadda meeshaas waxaa ka dhiman keliya 12,000 ayaa ka dhiman. 12,000 ayaa ka dhiman. Marka waa laga yaabaa boqolkiiba 90 inuu tago halkaas. Haddii uu lumiyo 85 waa 12,000. 85 hadduu lumiyo waa 9,000. 9,000, 12,000 adiga waa 80. 12,000, 13,000 ilaa meelahaas. Boqolkiiba boqol way u badan tahay inuu tago. Marka ciddii ka faa'iidaysan lahayd waxaan kula talinayaa inay sugto, aysan suuqa ku degdegin. Markii waxaan ay soo dhacaan oo maaragtay ay ka faa'iidaystaan. Suuqa guud haddaan ku eegno, suuqa guud ahaantiisa haddaan eegno, suuqa asaga wax maaragtay cusub ma lahan. Hoos u socdaa. Meeshan soo arkaysiin 25 oo ahay 1.25 trillion oo ahay haddana 1.23 waaye. Coinanka soo gala waa 19,000. Kuwa maaragtay hadda aadka maaragtay u kaca waa kuwan, laakiin wax micno ma sameynayso sababtoo ah suuqa waa iska hoos. Marka iska ilaaliya. Mar walbana maaragtay ka faa'iidaysta. Ha isdhihina ka niyad jabina, ha isdhihina maaragtay waxaan wax jira maahan ama waa dhaca ama waa khalaas way u dhamaatay. Ma ahan hadda wixii ugu horreysay oo markaad Bitcoin gasho. Hadda wuxuu marayaa 29,000 sidaad arkaysaanba. Haddii aad doonto waxaad geli kartaan history data ayaad gelaysaan. Marka wuxuu kuu sheegayaa 360 casho. 2016 January ayaan leenahay. Ugu diidin inuu soo saaro 360 iyo intaas dheh. Marka sidaa u aragtaanba. Okay, 38,000. 38, 36. Adiga waxaad ka fiiri kartaa halkan ayaad ka fiiri kartaa oo aad ku arkaysaa maaragtay mar walba qiimihiisa sanad walba siduu isku bedelo. Laakiin aniga waxaan ka fiiriyaa chart-ka. Inta badanna qiimihiisa waa la socday. 2020 waa kan. 19 3,000 ayuu marayay. Fiiri wuxuu gaaray 18,000 ayuu gaaray. Halkan aan ku eegaynaa fiiriya. 18,000 ayuu gaaray. 19,000 ayuu gaaray. Calaamadda madowga ayaa saaran. Marka waxaan leenahay halkan
wuxuu lumiyey fiiri 75% ayuu lumiyey 3,000 uu yimid 3,800 ayuu yimid waa kana greenka markiisana waa taasaa si aad u fahantiin greenka waa taas marka wuxuu yimid haddii aan si kale si fiican kugu sharaxo halkan ayaa taabanaysaa meesha ugu hooseysa uu tagay ayaa taabanaysaa 2,900 ayuu tegey okay waxaan soo qaadanaynaa kan waa kaasa 2,000 2,900 arkaysaa soo ma 2,000 ilaa 3,000 ayuu tegey 18,000 marka mar walba wuu sameeyaa sidaas wax maaragta hadda ku cusub maahan suuqa marka wax dhibaato ah oo arkina oo wax maaragta sidaas u weyn maahan insha allahna waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysataan oo aadan ka niyad jabina suuqa mar walba kor iyo hoos qaarna way ka faa'iidaystaan qaarna lacagtooda la tagaa waa sidaas xaaladiisa marka insha allah halkaas ayaan iskaga soo gabagabeynaynaa videogan laakiin bitcoin wuu dhacayaa marka insha allah ka faa'iidaysta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.